marka parliamentary waxa weeye signal reedka aan shidahayo inaad wada ogaataan. tan labaad waxa weeye arrintii shaqaalaha xildhibaana soo qaaday. shaqaalaha lama qori karin from 2017 dowladdan ay timid shaqaalo lama qorin, haddana ma la qoraayo. cidda sugaysa shaqaalaha la qora bayle awood uma laha, wasaaradda shaqadana awood uma laha. caddaan inaan iigu sheego way badatay waa soo noqnoqotay arrintaas. annaga ma dushana laga haystaa. shuruudo weyn ma kordhin karno shaqaalaha lama kordhin karo, waa idinku celinaya. marka wasiirku waa ku dhigtooday, wasaaradda shaqadu way ku dhigtootay, lama helaayo. hadda waxaan maqlayno haddii wax la helo sanadka dambe iyo kuwa especially kuwii meesha ku baaba'ay muddada badan joogay ee ku meelgaarka ah in wax laga helo. waxaa kaloon aada uga mahadinaya wasaaradda shaqada mar labaad waxay diyaaratay sharcigii pension xoogaa dad in laga saaro meesha. anagana iskama bixin karnee waa jeclaan lahaa wasiirka shaqada arrintaas inuu si-aada uga hadlo. xoogaa dad baa ka baxaya, dhaqaalaa soo haraya, kuwaas inaan wax ku qorno. marka arrinta shaqaalaha waxa hadda wasiirku meeshu sheega xoogaa aan lacagan haynaa oo leeyahay tijaabo wey oo lagu fiirinayo soomaaliya dayn ma bixin kartaa. waxa ay bixin kartana tirada uu sheegaya lacagta lagu leeyahay dalku ismala. bimacnaa waxay la mid tahay canug yar oo socod barda. waxaa la baraya dowladda soomaaliya sida ay deynta iskaga bixin lahayd, ma aha dayn inay bixin karto. ayaduna sida ayna ugu talagashaan ayaa jeclaan lahaa. mashaariic badanaa laga hadlaya, taa wasaaradda shaqada kulaa u dhaafi lahaa. mashaariicdaad markii aada arkaysaan ma aha mashaariic soomaalidu iyadu ay leedahay, ma aha korinka ka yimaadaan waana la hayaa, waa waxna loo soo dhiibayo. ayaguna nidaam ay leeyihin, ayagaana soo qaybiya waana la qaybiya. waa mahadsantiin arrintaasoo ku gaaban laha. wasalaamu calaykum. waa mahadsan yahay wasiirka, adinkoo mahadsan.